ninka si lama filaan ah ayuu dhulka ugu daadiyey nacnacyadiisii wuxuuna arkay in ay si iskeed ah u dhaqaaqayaan. Waxay bilaabeen inay rogrogmaan oo ay isu dhegaan iyagoo samaynaya wax weyn oo isku ururaya. ninkii oo cabsi galay ayaa gadaal u baxay balse nacnacyadii waxay ku boodaan isaga wuxuu si quus ah ula dagaalamay wuu ka takhalusay wuxuuna kor u qaaday gacantiisa si uu dhufto laakiin gacantiisii waxaa gebi ahaan liqay nacnacyadii. nacnacyo kale ayaa hareereeyey iyagoo u diiday inuu baxsado. ninkii wuu qayliyey isagoo caawimaad dalbanaya saaxiibkii ayaa soo orday si uu u caawiyo laakiin isagana si degdeg ah ayaa nacnacyadii u hareereeyeen taasoo ku qasabtay inuu geeska guri isku qariyo isagoo taleefankiisa soo saaraya si uu booliiska u waco. ka hor intuusan garaacin lambarka hal nacnac ayaa si tartiib ah madaxiisa ugu fuulay kuna booday wejigiisa. nacnac kale ayaa ka booday dhulka oo ku riday. kitaabkiisii sixirka ayaa dhulka ku dhacay si lama filaan ahna u furmay markaasna nacnacyadii waa la nuugay oo kitaabka ayaa gudaha u liqay. saaxiibkii daqiiqad ayuu naxdin ku noqday kadibna si degdeg ah ayuu u dhaqaaqay. wuxuu si dhaqso ah u qabsaday kitaabka sixirka wuxuuna u jeediyey maskii weynaa ee nacnacyada ahaa dhammaan waxaa isla markiiba lagu nuugay bogagga kitaabka. markaasay si degdeg ah guriga uga baxeen. waxay u ordeen halka ay walaashiis joogtay ka hor inta aysan wax u sheegin waxaa halkaa soo galay isqorayaal lafo ka samaysan. saaxiibkii wuxuu furay kitaabkii sixirka lafo yaqaanadii waxaa bogbog loogu nuugay kitaabka. walaashiis afka ayay furan tahay oo la yaaban balse xaaladii waddada way ka sii xumaatay xayawaan badan oo bahalo ah ayaa ka soo baxay mugdiga iyagoo hareereeyey xaafadda oo dhan. inta lagu jiray qalalaasaha ruux ayaa si lama filaan ah u soo baxay wuxuuna ka qaatay kitaabkii sixirka. iyaga oo aan lahayn awooddii kitaabka waxay dareemeen quus iyo niyad jab bahalihii waxay soo dhowaayeen si degdeg ah. markaas ayaa si lama filaan ah u jiiday gudaha guri. waxay u maleeyeen in la dili doono laakiin maskii wuxuu iska bixiyey wejigiisii oo noqday saaxiibkood fasalka wuxuu ku yidhi si hoose ha cabsanina. waxaan ogaaday in haddii aad iska dhigto bahal aysan ku weerarayn. sidaas darteed saddexdooduba waxay isku duubeen maro iyagoo iska dhigaya dad dhintay oo nool markaasay waddada u baxeen bahalihii dhabta ahaa way ag mareen midkoodna ma garan inuu bini'aadam yahay.